magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran isla markaana ujeedada ahayd doorashada gudoomiyaha beesha Horaarsame oo lagu qabtay dalka Canada. munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan, halkaas oo gudoomiye loogu doortay Abubakar Cali Koraar, halka ku-xigeen loo doortay Aadan Xasan Yuusuf. munaasabadaas waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala gedisan ee ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada.